Assalamu alaikum. This is me Osama Mohammed Ibrahim, Somali Sudanese Hospital. Today we are celebrating the Heart World Day. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو دكتور أسامة محمد waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka Somali Sudanese. Maanta waxaanu dabaaldegaynaa maalinta caalamiga ah ee wadnaha. So all we know the heart is very important organ. He is supplying blood to the whole body. So all we need to take wadnuhu waa xubinta ugu muhiimsan ee jirka. Wuxuu dhiigga gaarsiiyaa dhammaan jirka. Sidaas darteed waa inaan ka taxadirnaa oo aan daryeelnaa wadnaha. How we taking care of our heart? We have to take care of our heart. If you have like any chronic disease like hypertension and diabetes, we have to take care of. Sidee u ilaalin karnaa badqabka wadnaha? Haddii aad qabto cudurrada raaga sida dhiigkarka, hypertensionka ama sakarowga, diabeteska, waxay noqdaan khatar weyn oo sababi kara cudurka wadnaha. Waa inaan sidoo kale ka taxadirnaa cuntada iyo qaab nololeedka si aan uga fogaano cayilka. Sababtoo ah culayska badan wuxuu saameyn ku yeeshaa wadnaha. Sigaar cabista waa sababta ugu weyn ee keenta cudurka wadnaha. Sidaas darteed waa inaad joojisaa sigaarka. This is very important things. All these things, if we take care, we're going to take care. Kuwaasi waa arrimo aad u muhiim ah. Haddii aan daryeelno wadnaha, waxaan daryeelaynaa nolosheena. Wadnaha iyagu waa nolosheena.